Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kani waa mid ka mid a muuqaaladeena imtixaanaha noo ahay oo ku saabsanay barashada KineMaster-ka. Maanta KineMaster-ka waxaan ka sheekeyn doonaa cashir ah sida loogu sameeyo muuqaalka gadaashiisa qoraalka socda oo loogu mahad celiyo dadka ka qayb qaatay muuqaalkaaga ama sida hadda aflaamta oo kale qoraalka dheer ee gadaal ka socda ee lagu tilmaamo aktarada magacooda, laadariinta, dadka atriishooyinka, wixii filimka kaabalaadar waxyaabahaas dhan wixii filimka ka qayb qaatay, editing ahaado, cameraman ahaado, musician ha ahaado, director ahaado, producer ha ahaado, qaabeeye ahaado, sidee marka loo sameeyaa qoraalkaas sidee loogu sameeyaa KineMaster-ka. Waxaad ku sameyn kartaa adigoo isticmaalaya qaybtan u koreysa oo media. Waxaad soo qaadanaysaa marka muuqaalkii aad gadaashiisa ku sameyn lahayd qoraalkaas soo qaadanaysaa. Muuqaalkii marka wuxuu ku soconayaa ugu badnaan dhowr daqiiqo. Muuqaalka markuu dhowr daqiiqo soconayo marka waxaa muhiim ah in muuqaalkaaga markaas aad sameysid qaybta dambe aad ka saartid qoraalka. Marka waxaad sameynaysaa muuqaalka aad click ku siinaysaa, kadibna waxaad dooranaysaa playlist ahaan waxaad dooranaysaa marka calaamadaas marka aad clip graphican aad soo gashid waxaa kasii dooranaysaa mode title effect. Mode title effect intaan meesha ka muuqata hadda u wada baahnin, muhiimadeena maahan. Waxaa muhiimadeeda midkaas ugu hooseeya oo ay ku qoran tahay credits. Kan markaad click ku siidid oo sidan ay kuu soo baxdo waxaad sameynaysaa text color ugu horeyn dooranaysaa, kadibna waxaa ka dooranaysaa colorka aad u baahan tahay. Kadib ani colorka waxaan ka dhigayaa cagaar. Colorka u baahanahay markaan doorto waxaan sameynayaa marka credits textigan galaya, kadib meeshaan ku qoranaysaa marka wixii aad u baahneed oo ah qoraalka mahad celinta. Aniga marka hadda kama gaaro way soo diyaarsaday qoraalkayga mahad celinta. Marka bal intuusa marka sidaan u qoray cameraman, kadibna waxaad sameynaysaa marka inaad meeshaan 2 dhibic aad ka siisid, kadibna editing inta waxaad ka siinaysaa 2 dhibic space dheh, kadibna waxaad siinaysaa 2 dhibic ama nudqatayn fowqa albacdi hadba sidaad u garanaysid. Kadibna sidoo kale kana 2 dhibic sii, space-na sii raacsii, kana sidoo kale space dheh, kadibna nudqatayn fowqa albacdi. Okay, qaybta soo saarina tag, kadibna ku samee isagana nudqatayn fowqa albacdi ama 2 dhibic isdul saaran si marka qoraalka iyo mooyeen ay see ka xigsamaan. Marka hadda cameraman-kan marka waxaan sameynaynaa marka inaan iska dhahno cut, kadibna aan camera bas u qaadano. Intaan markaan sameynay kadibna marka intaan markaa ku qoratid oo ninkii kaamirada ku duubay aad sheegtid, editing-kana aad sheegtid, producer-kana aad sheegtid, director-ka iyo soo saarahana aad sheegtid, kadibna dhammaadkana aad tilmaantid, waxaad dooranaysaa qaybtan eeda meesha ku qoran tahay. Kadibna waxaa ka dooranaysaa farta u baahan tahay inay markaas uu noqdo muuqaalku u ekaado. Haddii kale qaybtan kale waa tegi kartaa oo faraha meeshan ku jiro mid ka hartaa ka dooran kartaa. Marka qaybtan kasoo dhamaatid okay aad soo leedahay, kadib marka muuqaalkii sidaan ayuu usoo baxaya. Hadda ujeedaa qoraalka marka waxaa sameynaysaa marka afkaan horaad ka qabanaysa hadda muuqaalku wada saaran yahay. Si muuqaalkaas u wada saarmin waxaa sameynaysaa marka afkaas horaa ka qabanaysaa, dhammaadkaasaad geysanaysaa marka ilaa intaasaa rabtaa inaad ka dhigatid. Okay aad leedahay marka saxdaa soo saaraysaa. Kadib marka bal muuqaalkan daawbal
sidaan marka hadda waxaad ku sameyday muuqaalkii ku saabsanaay qoraalka ka dambeeya muuqaalada sida loo sameeyo. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.